بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ku duubayaa maansada oo la magac baxday darajada ismoodsiis odaygii noo dalaalimay maansadan waxaa qabtay anigoo ah Faadimo Maxamed Cumar waxaan ku qabtay dalka Belgium aan deganahay maansadani waxay qusaysaa ama si cad u qeexaysaa dhibaatooyinka ka jira deegaanka waqooyi bari Soomaaliya deegaanka la magac baxay gobolada SSC taas ay ka jirto siyaasad mugdiya iyo taariikh lama ilaawaan oo mugdiya oo xaraysay dadka Ilaahay halka ku beeray taasoo ay sababeen dad Ilaahay meesha ka dhex beeray oo umada shacabka masaakiinta halka degan taariikhdoodii mugdi gelisay sharaftoodii iyo mustaqbalkoodii mugdi gelisay noloshoodii ku xaraysay tiiraanyo iyo warwar tano ay tilmaami doonto taariikhda maansada waxay in leedahay sidan darajada ismoodsiis odaygii noo dalaalimay hadda dabarka noo xidhay dibindaabyo badana odayga dabaysha ah haddana duula abidkii dar allaan u nacayka ma cid kala danka bidin darkan weysha lagu xidhay duunyadan la foofsaday dawladaha shisheeyaha marba daris ka dhigataa dan ahaan u aragtaa bal maxaa darka dhigay dad la siman abid dogsinta maxaa galay iyo dayra reera oo teen dulmiga maxaa baday maxaa doorshay badidood da'yartii maxaa helay dulmiga u aqbalayaan odayaashan kala daran damiirkoodii uu lumay midba dabinka xidhaya dagal reera kale iyo dibugurasho mooyee damac kaleba garanay duunyada ka sii daran duulkan maxaa helay ma dambi ay galeen iyo deen horaa ku wada maqan dar allaan u leeyahay ma daaqsintay naf moodeen dabanada kuwaa xidhay kuwaa daahay sharaftii dabadeed dul mayracay durxulkii ka buuxsamay waxay doonayeen iyo waxay diidayaan garo dooroone laga waa dumarkii maxaa helay dirgagaxasho laga waa dabadeed ka sii daran odayga dabaysha ah haddana duula abidkii daafurkiisu wuxuu yahay dayrtana cirbaa da'ay dalagaa la cunayaa dulucdiisu waxay tahay dadka ha u adeegeen waxaan daniibo ugu jirin duunyada la foofsaday dabayshan babanaysaa dulligaa cajuuska aan dun xariira lagu arag seedigii dar aan u dhigan hadalkiisa dalabta leh hadalkiisa dabar kale deelaqaaf ku caanbaxay dar allaan u nacikaa dacar yahay qadhaadhi dacartuba marbay dalag duunyada u noqotaa dulmiyaho ragmanayaa duxumadu galbinaysaa dacartuba marbay dalag duunyada u noqotaa dabaqoodhi jecelah iyo dadabgal reerood damiciisu liitee dayn-gurasho badana dar allaan u nacikaa kuwaa duulal kala jecel iyaguna ka sii daran dacwadaha horkacayaa iyaguna ka sii daran odayga daciifka ee huteelada dul meeraca dalaq yiri Jabuuti docodacaynta xabashida durba meelo kala aad da'yartiisii dabar jaray dagal kale durba u raray waxay dana u moodeen daafurkii taleexiyo doyihii shiraaqnaa isagaa darkaa dhigay odayga daciifka ah oo haddana dul mayracay waxaan dowba noo gelin dani naga dhaxayn abid isagaa darmada waray odayga daciifka ah da'yartay ha lagu yiri danta ma isku raacnaa dalka maan xoreynaa dadka ma u adeegnaa diintaaba ina tiri dan wadaag intii ihi durxul ha u ahaadeen wuxuu dowgu ugu jiro dayr adag ka wada gala duulkii xumaan wada dibna yaan wax loo dhigan danyaqiin siyaasiya darajiya dulqaad badan dooroonahooda leh dowcad bay inagu tahay dulankaa ninkii dhigay ninkii daahay sharaftii darashkaa ninkii suray
damiirkiisii foofsaday, da'yartiisii dabar jaray, dulinimo ka doorbiday, darajada darmada wadhay, inay wada diboodaan, inay dibadda rooraan, dumarkuna diboodaan, dadku wada duruuf iyo dayac wada hadhaystaan, taariikhda duugga ah abid wada dalluubaan, bay duub adag u qaateen, duulkaa la foofsaday. Aandana kalaba garanayn, dulmiyahan siyaasiya, duulkaa wax loo saar, da'yartii maxaa helay, danta keli ka wada dhiga, dadka meel ka wada dhiga, dayrkana ka soo xidha, ninaan daniba kuu gelin, ninaan duunyo kuu hayn, dekanaha ninkaa jecel, diir qura dhexdiin marin, daafurkaa isweydii, iyo waxa degalladaa galay, iyo dayro reero oo teen, dar allaan u leeyahay, maxaa doorshe sharaftii, dulmigaa maxaa baday odayaashan kala dar.